xubna ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weerar ku bilowday madaafiic waxay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda iyo kuwa howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ay ku leeyihiin degmada Waajid ee gobolka Bakool. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Waajid ayaa sheegay in saldhigga la soo weeraray ay degan yihiin ciidamada xoogga dalka gaar ahaan ururka 260aad isla markaana halkaas uu ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka nuuciisa kala duwan oo dhexmaray ciidamada dowladda iyo kuwa howlgalka midowga Afrika ee ADMIS isku dhinaca iyo xubnihii ka tirsan al-shabaab ee weerarka soo qaaday. ciidanka ururka 260aad guutada 9aad ee qaybta 6aad iyo kuwa howlgalka midowga Afrika ADMIS ayaa madaafiic kala duwan u adeegsaday xubnihii soo weeraray waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen in madaafiicdaasi dhimashay dhaawac ku noqdeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab. wararka ugu dambeeyay naga soo gaaray degmada Waajid ee gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegaya in xaaladda maanta ay tahay mid degan hase yeeshee ciidamada dowladda ay dowladka degmadaasi ay ka wadaan howlgallo kala duwan oo lagu baadigoobayo xubnihii ka tirsan al-shabaab ee weerarka soo qaaday. wararka ayaa sheegaya inuu jiro khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac isla markaana soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay inkastoo khasaaro inta uu laga yahay aan la ogeyn.